بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرف وين بيناتي مانتا إن هذا كل كان كسر دوينه مدحوينها دولة الفدرالية الصومالية ودنا حسن شيخ محمود يوفد حورس وهو جامين أيه ونوجي من مجال مقدشو مدحوينها وسر دويننا قاعد بنوفر أحسن ناي تذكر ريب بودلان يا شعب كريب وصاص أنتوا بمدحوينها كسر دويان تذكر شعب كاجي وأوتيمد إن تصوب وقت أوتيمادو قاعد بيوفر أحسن يهمتي نحن شرف وين بيناتي حكومة هناك الدولة دهانبا مدحوينه بوغشر اسمه لوجي يمد طبعا مناسبة ده ومهم كوحوية وفرتان كربوركا بوساسود بريتو لكن طبعا مدحوينه دوي ماذا وحبضان وكله ولحريرة نبضة يجد سعود كنبضة الصوماليات يهرب مركا يو مستقبل كالصومالية إن لقوا ده الله وحلا سكوي ديو شعبي يسوي أركو وفكر كوي دقيستنا ليش أيه كجرته إن شاء الله وقت أنت كبضن وأيام ونسهر الدولنا ونسود ويننا مدحوينها يوفد جيسة مدحوين سود الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آدي أيام ما أنت مالون وين أو تاريخي أي جودهان صوماليا وطاي جارهان أنا وأحمد مدحوينها جمهورية يو شعب كرير بنتلان سجارة عربا إن آدي ومهد علي مدحوين عبد الولي شعب كرير بوصاصو يجودهان شعب كبنتلان سو دوينتي بلارنيت قربتنا لو جسم بي محوها هاي هالكن مقالة بوصاصو وركا فرصة آدي وين سوين أو شرف بدن صومالي نمو يقدرين بدن يكجرتو أيانا لوسو دوي وأنا كفر حسناي وأنا كم هاد علينا سيدا مدحوينه وشاقي مرة دي مدحدو اسكت ماذا كدبنا محوها إن لا اسور صدو oo danaha Soomaaliyeed guud ahaan la iska warsado iyo dabcan gaar ahaan horumarka ballaaran ee ka socda Puntland in warbixinteeda nala siiyo annaguna aan muxuu ahay taladeena iyo ra'yigeena aan ku beerino sidii horumarkaasi u sii ballaaran lahaa oo maxaan ku raadin guud ahaan Puntland ee dhinaca horumarka maadaama stage-kii ama heerkii horumarka hadda ay ku jirto in maxaan ku raadin dowladda federaalka doorkeeda wixii ay ka qaadan karto ay ka qaadato hadii aan yiraahdo taas waa midaas waxa kale inta dheer munaasabada weyn ee airborkan cusub ee aad iyo aad muxuu u quruxda badan casriga ah ee ka hirgalay magaalada Boosaaso waa horumar iyo guul u soo hoyatay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo gaar ahaan dadka reer Puntland waa mashruuc aad iyo aad qiimo u leh oo muddo dheer soo socotana muxuu macna badan ku soo kordhin doono horumarka Puntland haddii aan la yiraahdo khaasatan magaalo ganacsi ah xeebta ah maxaan ku raahdaa aad caamka ugu ah dhinaca ganacsiga hadday tahay dhoofinta waxyaabaha Soomaaliya laga dhoofiyo xooluhu ugu horeeyaan iyo waxyaabaha kale iyo hadday tahay soo dejinta badeecado badan oo dalka Soomaaliya qaybihiisa kala duwan iyo dariska intaba gaara marka taas bay sii xoojinaysaa infrastructure-ka ka jiray magaaladan waa horumar waxa sidoo kale aan u nimiday ayaduna inaan la wadaagno farxadda dadka reer Puntland iyo dawladda Puntland intaba muxuu ahaay sanad guuridii ka soo wareegtay doorashadii madaxweyne Cabdiweli oo ayadana waqtigeeda la joogo oo aan leenahay muddadii madaxweynuhu uu talada hayay Puntland gaar ahaan iyo guud ahaan Soomaaliya intaba wax weyn ayaa hoggaankiisa uu ku soo kordhiyay dawladda Puntland ay ku soo kordhisay marka waxaan leenahay madaxweynahana si gaar ah hambalyo dawladda Puntland guud ahaan iyo shacabkana waxaan leenahay ayaguna hambalyo marka munaasabadaha aad iyo aad u qiimaha badan oo isbiirsaday oo maalinta berri ah hadii aan la yiraahdo aan ka wada qayb gali doono ayaan u nimiday dabcan muxuu ahaay la tashi amuuraha Soomaaliya iyo siyaasadda Soomaaliya ee maanta meesha xasaasiga maraysana sidoo kale waa la iska warsan doonaa ayadana hadii aan la yiraahdo marka mar kale waxaan leeyahay madaxweyne waa ku mahadsantahay soo dhaweynta shacabka reer Puntland gaar ahaan shacabka reer Boosaaso sidoo kale garoonkan Boosaaso hadda ka hor dhowr iyo 20 sano ka hor isagoo carra aan ka soo degnay aniga iyo nin saaxiibkay isla socono maanta idoo waliba xilli dalka iska dhibanaay oo aad iyo aad nin Maxamed Jaawac Gani la yiraahdo xawaaladaha hadda jooga dalkan ka shaqeeyaan Muqdisho iska soo raacneen halkan garoonkan oo carra aan ka soo degnay marka maanta waa farxad iyo rayn in garoonkii si casri ah u dhismay oo maxaan ku rahay standardkii garoomada oo dhan ay u dhameystiran yihiin
inaan kasoo dego si gaar ay farxad iisii gelinaysaa iyo xusuus aad iyo aad u macnale ay ii samaynaysaa marka mar kale waxaan leeyahay dowladda Puntland hambalyo sidoo kale shacabka reer Puntland hambalyo aan leeyahay waxaan rajaynaynaa horumar iyo mashaariic badan oo horumareedana sidaan oo kala inaan ka soo qayb galno muxuu ahaay furitaankooda hadii aan leeyahay aad u mahadsantiin. Salaam alaykum.